بسم الله الرحمن الرحيم دمان أمد المسلمين تعملوا بيتشوغان قارهان أمد الصوماليات وحن لنا هاي عيد مبارك إلهي بمهد إسكاله إن دتك أمد المسلمين تا قارهان الصوماليات ولو عيد لو جرى معلمه عيدة سفر حدنا لو عيديو إلهي نوسي هذيو وعن كلام ربنا هل كان إن مانتي إذا كل وده أجنو دعضي يرو مانت كدعضي كده بنتلان دعضadaas oo la xiriiray saakay anagoo wax war ahayn inay soo dhacday macluumaad sheegaya in diyaarad sida alaab gargaar ay ka degayso magaalada Boosaaso runtiina xogtaas ay ku timid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa amniga sida gaarka loo maamulo kuwa amniga Puntland ay yimaadeen aeroboortka ayagoo la diyaarad baa imaanayso aan rabnaa inaan alaab ka soo dejino iyo muslimiin la socota adugu dadaal dheer kadib diyaaradaas si nabad ay ku timid shidaalkeedan u qaadatay dibna ugu laabatay run ahaantii wadanka waxaynu wada ogsoonahay waxa ka jira xaalad abaar ah oo aad u baahsan Soomaaliya guud ahaan Puntland ay ka mid tahay meelaha ay aadka u saameysay waxa lagu jira xilli dadaal badan lagu jiro oo dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba la joogaba iyo dawladaha xubnaha ka iyo dawladda federaalka lagu wada jiro sidii dadka loogu gargaari lahaa xaaladda abaartana wax looga qaban lahaa arrimahaas oo muhiimadda ugu weyn ee dadkeena sida wax lagu gaarsiin karo ay tahay in coordination la sameeyo in la iska warqabo xiriir laga leeyahay sida dadka wax lagu gaarsiinayo waxaynu wada ogsoonahay nidaamka hanaanka federaalka dalka ka jira ay wuxuu xoojinayaa mas'uuliyaadka iyo qaybsanaantooda iyo iska warqabkooda iyo isku xirkooda dawladda Puntland waxay diyaar u tahay inay wada shaqayn dhow kala yeelato dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah sidii dadka abaartu haysay iyo dhibaatooyinka kale dalka jira amnigu kow ka yahay wax looga wada qaban lahaa oo la isku garabsan lahaa laakiin muhiimadda ay leedahay waxa weeye in mar walba uu jiro xiriir iyo iska warqab laakiin aysan dhicin meelaha qaar kood sida wax u dhacayaan gacan dhaaf iyo iska warqab la'aan waxaan rajaynaynaa arrimahaas inaysan mar dambe soo noqon haddii la ahaydmo dadka sidii maadaama dadkii ay dhibaato culus dalka jiro guud ahaantiis la iskala warqabo coordination laga sameeyo loona wada istaago sidii dadka loogu gargaari lahaa haddii la ahaydmo waxaan rajaynaynaa dhacdooyinkan oo kale inaysan dibna inoo kugu soo noqon haddii la ahaydmo wada shaqayn dhowna laga yeesho haddii aan leedmo runtii dalka Soomaaliya waxaynu wada ogsoonahay dawladda ayaa ka dhalatay madaxweynaha la doortay ra'iisul wasaare la magacaabay dhamaystirka kala suugaynaa waxaan rajaynaynaa juhdi dheer oo loo soo wada galay dalkan inuu jiha sax aado in haddii la ahaydmo aysan dib u noqon laakiin laga wada shaqeeyo dawladnimada iyo dhamaystirkeeda haddii la ahaydmo dawladda Puntland diyaar bay waxay u tahay dhinac walba dadkeena sidaan ugu wada shaqayn lahayn oo aynu garabkooda u istaagi lahayn haddii la ahaydmo